waxaa yimid delegation ka socda dawladda Soomaaliya ka jiray markaas delegation kaas halka yimid wuxuu watay mashruuc uu ku marayay Scandinavia oo dhan oo heshiisyo la galahayo dawladaha Scandinavia in ay dawladda Soomaaliya soo dhaweynayso dadkeeda halkan jooga qaxootiga ee ama sharciga loo diiday ama saxataa kuwa sharci haysta ee waqtigii ku dhamaaday in la soo celiyo in dawladda Soomaaliya aqbalayso heshiiskaas ayaa wuxuu ahaa horta gundhiga saldhiga dawladda Danish inay ku dhiirato waxaanay hore u sameyn jirin waxa dhacday markaas sanadkii la soo dhaafay ayaa arintaas aad u sii xoogaysatay waxaynu ognahay in heshiiska la galay oo sanahayn mid aha free of charge dawladda Danish lacag badan bay ku bixisay lacagtana waxay ku siisay cidii la gashay heshiiska dadkii Soomaalida halkan joogay dad shaqeeya wax bartay shaqaysta sharciga haysay ilaa 12 sano ayaa dawladda Danish markaa waxa u suurta gashay inay liis gashato siyaasadda ka socota dalkan siyaasadda ka socotana waxa weeye axsaabta maanta haysata dawladda maamulka wadankan ayaa waxay yihiin axsaab dhan hadii laga eego muslimiinta si gooniyo ulaa waa arin loo yahay la wada yaqaano islamophobia ayaa ka jirta xoog leh oo xawli badan waxa kale oo taasi dheer dadka Soomaalidu inay yihiin dad madow oo midab ahaan lagu diidayo xisbiga baawarka dawladda maanta haya aan dawladana ka tirsanayn ee la yiraaho xisbiga Denmark la yiraaho Danish Dansk Folkeparti ayaa wuxuu yahay xisbiga ku aanbaxay arrimaha cunsurinimada qayaxan oo aan daboolka lahayn laxdin weyn waxa leh maanta laba casho ka hor ninka u taagan positionka labaad xisbiga Social Democrat oo la isku haleyn jiray bani aadanimada uroonaanta qaxootiga in uu daraato TV-ga inta soo istaagay ka yiri dadka qaxootiga ee dalkayga soo galaya waa inaanu yeelaa sida Australia intaanu ururino oo doonyo saarno in jasiirad ilaa dhowr kun oo kiiloomitir noo jirta aanu ku xareeno ku daadino khasabnana inaanay ka soo bixin weligoodna aanay soo galin dalkayga waa Social Democrat oo halka maraya marka Denmark arinteedu meel xun bay maraysaa sharciga caalamiga ah ee Geneva Convention uu daba marsan yahay marka loo eego sida ay u dhaqmayso dawladdaasi Denmark oo iyadu baarlamaankeedu ay cadeeyeen in ay qaramada midoobay iyagu ka og yihiin danaha wadankaasi Denmark oo aysan u daba fariisanayn sharciyada qaramada midoobay oo yaala qoraallo badan baanu sameynay waanu la xiriirnay dawladda waanu la xiriirnay meediyaha oo dhan dalkan waanu la xiriirnay waxaad ogaataa dawladda Denmark waxa maanta ku kacaysa waxa la wixii ay convention saxiixday wax allaale wixii heshiis qaran adduunka ay gashay oo ku jirtay way jabisay baarlamaankeeda waa la hadlay EU way la hadashay hay'adda qaxootiga adduunka way la hadashay qaramada midoobay way la hadleen jawaabtii baarlamaanka gadaashiyada ka soo baxday waxay ahayd qaramada midoobay anaga dalkayga dantiisa ka aqoonay ayay jawaabtii waxa mushkiladda ugu weyn tahay hadda oo taagan oo dawladda Danish ku dhaqaaqday oo xaqiiqsatay ama xalaaleysatay dadkii convention-ka lagu keenay qaramada midoobay ay dawladda Danish intay tagtay xiriyaha qaxootiga ka soo qaaday ayay celinaysaa hadda Soomaalida qurana weeye ma aha umad kaleeto wax murugale weeye dawladda Soomaaliya waxaanu u gudbinaynaa fariin cad oo ah ummadan Soomaaliyeed kuwii dalka joogay baa la ku faadhacaysaan oo idan waxba u haynin abaar iyo baahi iyo ammaan darro ayay ku joogaan xamar maanta wiilkii dhalinyarada ahaa ee soo noqday wasiirka ka noqday waatii darra lagu dilay ammaan darro daraadeed dadka kan way nool yihiin markii ay noloshooda sugaan dalkiina nabad noqdo oo hagaagana way soo laaban kumaan kun boqolaal kun oo Soomaali ah oo dhibanayaal ah ayay dadka kan maanta masruufaan oo kafaalo qaadaan dawladda Soomaaliya waxaan leenahay dib u baara malafka yaala ee dawladda idinka horeysay ay ka tagtay heshiisyadii ay la gashay Scandinavia oo xaaraanta ahaa oo lagu iibsaday ummadda Soomaaliyeed halkan ku dhaqan caruurta iskuulada dhigata ee maarta madaxa la soo qabanayo laga daadinayo Muqdisho waa in ay dawladda maanta joogtaa intay dib u baarto si cad oo hufan oo dhab oo Soomaalinimo ah oo mas'uuliyad leh waa inay dawladda Soomaaliya uga qayb qaadato waa inay u baarto waa inay u joojiso waa inay cancel gareyso waa inay dawladda Danish u sheegto dadka iyagu dalka iyagu inuu yimaado waa rabnaa oo ma diideyno balse diyaar ma nihin inoo kaadiya waa inay dawladda Soomaaliya afkooda u soo maraa oo geesinimada ay yeeshaan ay ku yiraahaan dadka iyaga
xaqdarrada iyo sharci darrada qaar qurumaha midoobay waxa lagu heshiisaya la jabinayo dowladda Denmark ha joojiso heshiiskii horena waxba kama jiraan oo waa baabi'inay waa inay si babliga u sheegto dowladda Soomaaliyeed haddii kaleeto oo aanay sidaa yeelin dambigii ay kuwii hor ka horreeyay ka galeen ummadda Soomaaliyeed ayay iyaguna mas'uul ka noqonayaan